waxaan mid iyadoo shaqaalaha dawladda aan weligood mushaarkooda boqolkiiba boqol la siin waxaan mid iyadoo xafiiska ra'iisul wasaaraha uu yahay guryo la degan yahay oo dhar ku waran yahay waxaan mid iyadoo wasaaradaha loo shaqo tagay waxaan mid iyadoo ciidanku diiwaan gashanayn waxaan mid iyadoo qofku ahaan kala shaqaale rayid ah boolis iyo military intabana uu mushaar ku qaadan karo waxaan mid iyadoo dhalinyaradu aanay lahayn fursad ay dawladnimada uga qayb qaadato waxaan mid iyadoo adduunyadu aanay shilin bangiga Soomaaliyeed aanay ku aaminin waxaan mid iyadoo adduunyadu ay ajandaha dawladdu ay ku shaqeynayso u yeesho waxaan mid xafiiska ra'iisul wasaaruhu iska daa meel lagu shiray meel la fariisto isagoo ahayn inuu yahay 3 sano iyo bar kadib qof la magacaabay oo ra'iisul wasaare ah intuu oo 100 meelood looga dhagan yahay intuu dalka ka qaban karay idinkana idin qaban karay waxaan aaminsanahay dadaalka ugu badnaa oo qof Soomaaliya bixiyo oo 18 ilaa 20 saacadood maalin walba shaqeeya inaan soo maray inta aan raba hadda inaan idin qabto waa waxay tahay in la igu aamino mas'uuliyadda guud si aan ummadda Soomaaliyeed uga caawiyo shaqooyinkan tirada badan oo caawa dhan ka wada hadlaynay oo ah Soomaaliya nabad ah Soomaaliya dhaqaale leh Soomaaliya horumarsan Soomaaliya cadaalad ah Soomaaliya loo siman yahay Soomaaliya loo soo shaqo tago aan laga cararin